kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Somalisat xaruntiisa magaalada Oslo. daawadayaal sida aad la socotaan baryahanba waxaa magaalada Oslo ee dalka Norway booqasho ku joogay gudoomiyaha ama afhayeenka golaha shacabka ee dalka Soomaaliya iyo wafdi ka kooban 15 xubnood ee uu hogaaminayay. wafuudaas ka timid golaha shacabka ee Soomaaliya waxay ka kooban yihiin 15 guddi oo ka kala socda gudiyadii loo kala sameeyay golaha shacabka ee dalka Soomaaliya. haddaba caawa waxaanu nasiib u yeelanay in aanu la kulanno gudoomiyaha guddiga howlaha guud iyo tamarta Cismaan Aadan Dhuubow oo aanu ku soo booqanay hotelka uu ka degan yahay magaalada Oslo ee First Millennium Hotel. Dhuubow ku soo dhawow Somalisat. aad baduna ugu horeyn Dhuubow aad waxaan nooga warantaa xildhibaanada faraha badan leh ee ku jira golaha shacabka mid kasta meel baa laga soo doortay ha ku yimaado beelo haddana wuxuu ka yimid degaankii laga soo doortay runtii waa su'aal meesha ku jirta sida hadda lagu yimid waa sida aad dareemayso baarlamaankaana asaaskiisa ma ahayn mid doorasho mid wuxuu ahaa xulasho sida qaabka lagu yimid ahayd deegaan ahaanna kama maaranto xubin kastoo baarlamaanka ka mid ah waxaa jirta deegaan shacabka u masalayay deegaan ahaan deegaan ku yihiin aniga xildhibaan ahaan waxaan ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada jubbooyinka jubbada dhexe iyo jubbada hoose baa labadaas dhinacooda ah marka xildhibaanada ila midka aana kulley waa gobollada ama ha noqdaan caasimadda ama deegaanada kale ha noqdatay intaasba nin kastaba meeshii deegaan ahaan uu ka soo jeedo unbaa masalkiisu yahay. waxaad booqasho ku timaadeen Oslo Norway socdaalkiina muxuu ku aadanaa? runtii socdaalkeena wuxuu ahaa socdaal ofishaal ah oo iska kaashadeen kulleyba sida invitationka dhinaca dowladda Norwayska Oslo Center waa ayadan hay-ada NDI ayagan mas-uuliyiintooda ay balan la socdeenba kulleyba inaan baarlamaanka wuxuu leeyahay hogaamo guddiyada hogaankoodana sida aad tilmaantay waa 15kaas guddi uu ka kooban yahay guddoomiyaashooda marka waxaa socdaalkaas inta muhiimadiisa ahayd inaan bal xaaladda guudna qaababka baarlamaanada u shaqeynayaan wax badan lagaga faa'iidaysto aadna mataqaanaa kulleyba howlaha wada shaqeynta ee xukuumad iyo baarlamaan siday iyo wax iyo adduunyadan qaabka hadda inta badan annaga dhinaceenna ay tahay waxaad dareemaysaa in aanan lahayn xisbiyo wax la yidhahdo inaan jirin dalkeenna laakiin kalaan politician wax saas oo kale ah kulleyba qaabo badan marka maadaama axsaab dalkan uu yahay axsaabtana kala duwan tahay oo haddana sida tilmaanta ay tahay xisbiyadooda cid majority ahaan wax kaga timaado oo gaar aysan lahayn oo siyaabaha ka duwan Yurubta kale ay u dhaqmaan marka in aan wax ka faa'iidno oo baarlamaanka guddiyada qaababka ay kala yihiin iyo guddoonadooda iyo guddiyada kala duwan sidii bal wada shaqeyn dambe iyo mustaqbalkana iyo xiriir loo kala yeelan lahaa. waxaad soo booqateen Storting ama baarlamaanka dalka Norway aad iyo waxaad soo aragteen qaabkii habdhismeedka uu u dhisay yahay baarlamaanka dalka Norway aad iyo farqiga u dhaxeeya baarlamaankeena Muqdisho ku yaala iyo kan haddaad isu fiirisay waxa ma naga taban kartaa? runtii waa su'aal meesha ku jiri karta annaga hadda waxaan maraynaa hab curduna wixii noo aas-aasnaana inta badan muddadii burburka waxaad moodaa in meelaha aad wax u saameeyeen oo ka mid ahaa baarlamaankeenii hore ee la yaqiinana
dee waaba meesha u maray xalkiisa waa dareenkeeda waa qabtaan ama sawiradiisa kale waa haystaan. Waxaan arkaynaa meeshaan in ay wax aasaasa ay leeyihiin oo aad u horumarsan dal qani ah oo dhinac kasta ka horumarsan inay yihiin dee waan la socotaa waana la wada soconaa. baarlamaan la dhihi karo wixiisoo dhan waa dhamaystiran yihiin oo dhismihiisa haddee intuu la egyahay qiyaastiisa iyo waqtigii dhismahaas laftigiisa lasoo asaaskiisa waqti hore ahayd xadaaradda meesha taagan mid aada u fogay ahayd. qayb kasta oo looga baahan yahay baarlamaanna inay u dhamaystiran tahay. muddada waa u jirayna muddo 100 sano hadda ku dhowaa taas dibaabeena lagu kala sameeyay, laakiin jiritaanka ama asaaskiisa in salka wax badan uu kaga hayay baa taariikhdiisana intii hadda aan ka aragnay ona looga warramay wax kulleyba aad iyo aad aan u kala fognahay. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka kulleyba wax kastaba isku dayay raggeeda waqtigeeda u iman doono. qaab dhaqanka keliya hadda ay u shaqeynayaan ama loo wada shaqeynaya kaas inaan wax ka faa'iidnay hadda ay noqon doonaan in aan dib ula noqon doono haddii aan leedahay. sida aad la socoto markii aad aadeen golaha shacabka ama baarlamaanka dalka Norway waa idin la socday aad iyo aad nin baa warbixin idin siinayay ku aadan dalka Norway iyo baarlamaankiisa iyo madaxdii timid iyo boqorkii yimid eermana askara. su-aashii aan weydiiyo ahayd dagaalo sokeeye ma soo maray dalka Norway dhuubu ninkaas uu ka gaabsado ma sheegin. aad iyo aad innagana laba qof haddii ay magaalo kale isku dilaan waxaa la yidhaahdaa oo adduunka meel kasta la mariyaa reer hebel iyo reer hebel iyo halkaa isku laayay. taas ma weyn ahayn. Was Norway have a civil war before the king? Norway was close to war with Sweden in 1905. dagaalo sokeeye dalka waxay soo mareen su-aashii kama usan jawaabin aad maqlays. aad iyo aad dagaalo sokeeye aad u ba'an bay soo mareen idimana ay sheegin. marka ummadda Soomaaliyeed maxaa ka khaldanoo dhibkii dhacaba isagoo aad u foolxun oo dibadda u yimaada. runtii aqoon darrada wax badan bay keentaa. hadda waxaad dareemaysaa su-aashaas jawaabteeda haddii sida aad wax su-aashay noqoto in xasuus kale ama wax kale ay iman karaan. ilan media wax wareysanayo waa dareemi kartaa wax badan oo xanuun hore ahaa oo taariikh hore lahayd in ay meesha ka baxdaan waa wax iska kulliba aada isaga ilaalinayay. ta kale markaa eegto waa dad wax isku hambeenayo dareenkaad arkaysa. waxaa kalifay in Denmark boqortooyo u doontaan dagaaladii sokeeye ee iyaga dhex maray aaminaad darro darteed ayaa taas keentay. ma laga yaabi lahaa Soomaaliya maanta dhibaatada ka taagan haddii la yidhaahdo Djibouti ama xilliga ka keenaya inaan yeelno wax kulley aad u kala fog. marka meesha anaga cagsigeeda uu ninkii mas-uulka sare ah tashi la-aan oo laga yaabo inuu qofna kala tashan laakiin reer lagu magacaabo qofkii oo laleeyahay qoys hebel ka soo jeedaa qoyskiina aan wax wara iyo wax talo ah iyo wax mas-uuliyad wax hore u dhiiban jireen ba aasan jirin wax magaca iyo mataqaanaa sharaf badan oo dhexdooda isku leeyahay. Soomaaliya waa istaqaan baa nasiib u yeelanaya in la yiraahdo hebel caawa isaga mas-uuliyaddii guud ee dal qayb ka noqonaya. waa mashaakilaadka taagan oo markastana wax nooga baaba'an oo la yiraahdo maxaa sababay maanta ra-iisul wasaare hadda la magacaabay xukuumadda la dhisay 2 bilood 3 bilood kadib bilaaya timid waa lagu kacay baarlamaanka kacay maaha. waxa sabab waxay tahay marka hore waxaan sal ku fidhinin baa leeyahay mas-uuliyad mataqaanaa uusan xambaari karin ama qaadi karin loo dhiibaa. meesha aan inta aan dareenka aan ka qaadayna ay tahay marka hore in laga fikirayo oo ama deegaan ama dhaq waxa ay inta ay tahay qofka laga eegayo aqoontiisii taariikhdiisii wixiisoo sal lagu hayo iyo dadka marka ayada xilalka kala duwan hayo oo tashi adag laga geliyo qofka ayada aan si aan qasaaro u noqon oo xisaabtay dhuubow waxaad ku soo jirtay baarlamaankan ka hor baarlamadii naga horreeyay kan ee ku meel gaarka ah
waxaana la soconay baarlamaankaas isqabqabsi tiro badan inuu ka dhex dhici jiray هذا kan hadda maanta صح aad ka tirsan tahay isqabqabsigii kii hore ka jiray kama jiro marka waxaan oran karaa baarlamaankan maba shaqeeyaba markay shaqo jirtaa isqabsi yimaadaa mise waxaan la oran karaa qabqablayaashii dagaal baa kan ku yar oo saasay ku timid runtii baarlamaanka oo ka mid aan ahayn baarlamaanka intiisa badan wuxuu u lumaayay hoggaanka xaggiisa maanta waxaad ogtahay in baarlamaanka uu hoggaan leeyahay hoggaanka uu leeyahayna kii horena hoggaan hoggaan waxaan ka hadlayaa marka hoggaanka aan leeyahay hoggaan aan ku leeyahay waa nin odaya waaya araga aqoon ku filan soo maray dowlado kala duwan oo dalkii ka jiray kasoo shaqeeyey xiriiro badan caalamka la leh shaqadii iyo waajibaadka asiga uu leeyahayna in badan ka fahansan qabqabsiga horaan tilmaanta loo lahaana waxay ka imaanaysay mas-uuliyiinta laftigeeda hoggaanka xilligaas waxaa yidhi lama arag baarlamaan sanad nin iska xirtaba lama arag waa dhici jirtay baarlamaan 5 shakhsiya ama 2-3 shakhsiyaad meesha hadda aad ka arkayso 15 guddoomiye guddi oo samaysan in caawa ay ku sugan yihiin cusub oo aanan waqti haddana inuusan jirin aad arkayso in intiiba muddada la joogay howl ay socotay howlaha mataqaana kule loo yimid inta isan noqonin wax fisad gaara laakiin hawsha adeegeeda cusub meesha hoggaamadii hore laga yaabay in 2 shakhsi iyo wixii shaqo ahaan ahaa baarlamaan lahaaba in aan wadadeeda la aadin oo la kala garan waaya meelo badan oo xisiga daba dhacaa marka taasaa waxay keenaysay waa kusoo jiray in xaalado badan oo abuuran dhinacooda kasoo abuuraan baa mashaakilaadka ahaa hadda bilow wanaagsanaa jira mar kastana qabsiga gudaha waxaa ka badan tan xukuumadda xaggeeda ka imaanaya taasaa laga yaabaa haddana muran kale inay mataqaanaa loo arko muran laakiin muran ma-aan waa sixitaan maxaa yeele waxaa ogtahay annagoo og oo la soconnaa wax kasta baa la yidhi bal waxaa socdaa 10 wasiir baa la sheegay 10 wasaaradood wax socon karaahay ma ahayn boos macquul ma ahayn maxaa yeele wasaaradaha kiiga ahaa oo dhan jeebab baa la geliyey wasaaradda caafimaad ma jirto wasaaraddii waxbarashada male wasaaradda beeraha male oo dhulka iyo deegaanada buraaqada la hoos socda meelihii la rabay in mataqaanaa ku-talgalka wax looga qabto wixii oo dhan waxay noqdeen marka 10 wasaaradood ay ku aruureen oo wasiirkiiba 5 wasaaradood kusoo aaday oo adduunka hadda arkaysa aan joogno qaybba ay qaybteeda leedahay 10 wasiir laga dhigayay madaxweynaha wuu ka hadlay ra'iisul wasaaraha wuu ka hadlay dhaqaalaha dalka yaalla yaa lagu bees gareynayay waxa la sameynayo maadaama dhaqaalaheena uusan saamixi karin in wasiiro tiro badan la sameeyo ama beel kasta hal wasiir loo sameeyo waxaa ka wanaagsan wixii in la soo koobay ahayd waxaa ku kalifay inay ka dhigaan 10 wasiir hadda waa la koobay waa tiri waa koobitaanka waxay hadda wax u shaqeyn waayeen wasaaradda dhan baa fariistay shaqadooda wasaaradda waxbarashada waa shay aada muhiim ah wax bareefad gala ma aha bareefad ma galayso wasaaraddan caafimaadka sidoo kale ana bayska hadii dal wax ka hagaagaan ama indhahooda mataqaanaa kulleyba hor socodkiisa laga dareemi karaa waa meelaha qofka cusub ee dal yimaado oo eegaya maxaa waxbarashada say wax ugu socdaan iskuulaadka say wax yihiin iyo meelaha kale caafimaadka wax haddana bayska si ah waa security oo nabadgelyada xaggeeda oo ama dhaqaaq fiicanba loo ahayn macnaha waxaad moodaaba in mashquul kale wax aan lagu mashquulin saa dhowbow waxyaaba fara badan baa jira oo dalka u baahan yahay oo waxaa dhacaysaa qofka bini aadanka waxaa lagu bees gareeyaa mar kasta waxa uu u baahan yahay iyo waxa inta uu haysto yaa la isku bees gareeyaa macnaha iswaafajiyaa marka ma dhacayso iyadoo oo dhaqaalihii aad og tahay dalkeena maanta dakhli meel ka soo gala maaha ilaahay dhaqaale oo dhan way burbureen waxaan gacan u horsanaa wadamo ajnabi ah si ay noo taakuleeyaan annagii marka in wixii la beeqaamiya sidaa loo sameeyey in dalka la xumeeyo maaha wax xumaan la yidhaahdo ama laga tago wasaaradaha ardayda waxaan ku leeyahay
waxaa jira haddaan la tilmaamin mashaakilaadkeeda leh ama aan la sugsan arrimahan hadda baaxadda leh ee iman doono macnaha wax kala hadleen ninka waxa soo socda aan garanin waxa jooga ma garto waxa hadda yaalla waxa soo socdaa waxa la doonaya oo dowladnimadan kulli asaaskeeda aada la socoto oo jaaniska aadka u weyn heshay oo meel kastaba dowladnimada magacii iyo karaamadii inay dib usoo noqoto la rajeynayo hore in loo sii socday haddana waxaad moodaysaa in jaanisyadii xakad badan uu ku jiro sidii looga faa'iidi lahaa xiriir caalam iyo wax kastaan inaysan meesha welin waana base waxay hadda aan ka hadlayno oo leenahay waa muhiimadda ay leedahay targetkeeda in la saaro xagga nabadgelyada xooggeeda lagu qabto iyo labada shay kaloo tilmaamayna oo ah yaa dhinaca waxbarashada iyo dhinacyada waxa soo raacaya waa horumarkii nabadgelyadaas dil iska helo sida hadda anaga hawshan ay tahay waa waddooyinkii sida loo hagaajin lahaa waa sidii dhismayaashii dowladda ay lahayn jirtay oo dhan sidii dib habeen loogu sameyn lahaa oo gacan dowladeed ay gacanta u noqoto shaksiyaad gacantooda ka soo baxda oo dib habeen loogu sameeyo ana dalka waxaad ogtahay inta badan in dhismayaashii qaranka uu lahaan jiray boosiyoonkooda weli uu taagan yahay mid maran iyo kuwa aada u burbursan iyo kuwa daba qabasho leh intii weli iskuullada qaranka waa sidoo kale ayagana dhismihii iyo magacii waa jiraa adiga waxa laga yaabaa in aad u fahmayso waxaasoo dhan haddii qaabab kale loo dhigo oo dareenka wasaaradahaas aanada lahayn aan dul taagan aan lahayn waxaa jirta iskuullo tiro badan oo goobo ku yaalay oo hadda magacyo kala leh ee dhismihii cid kale ay si kale u dhisatay oo aan la ogeyn inaa cidda saa wax u dhisanaysana markaad daba gasho laleeyahay sharciyadeeda waxaa bixisay xukuumadda qaybo ka mid ah waa waxyaalaha mataqaanaa baaha wax qaran la wada leeyahay oo shacab wada leeyahay oo la rabo wiilka jiilka hadda soo baxaya inuu ka faa'iido iskuulkii in shakhsiyaad looga faa'iideeyo aashaas waxaan weydiin doonaa markuu wasiir inoo yimaado waxyaabaha hadda adka waxaa jirta dhugow waxaad ka timid jubbaland waxaa lagaa soo dartay jubbaland jubbaland baad uga tirsan tahay meesha la yidhahda ee baarlamaanka heshiis waxaa jiray baryahan bal isku haystay oo muran fara badan uu ka taagnaa dowladdan ka horreeyey oo ku aadan dhinaca badda Kenya iyo Soomaaliya xuduudaasna waxay soo gelaysaa jubbaland bay soo gelaysaa oo marka wax saameyna ma ku yeelanaysaa jubbaland sidaba waxaan haykalkeeda waa wax guud ahaan in qaranka ilaaladiisa nagaraan baarlamaan guud u nahay wax hadda heer hoos aan ahayn oo heer qaran ah oo shuruuc dalka guud ahaantiisa kala ah oo hadda bedela midna aan jirin badda waxaa la socotaa sideedaba xilligii hadda nidaamka hadda ka horreeyey xilligii hadda baarlamaanka hore in tuhumkaas iyo murankaas bilowgiis u bilowday waxayaan dara noqotay murankii in ay xukuumadda xilligaa jirtay ayada ay muranka lagu hala gasho macnaa in ayadii dowladda warqadaheeda wadato oo istaraatiijiyadeeda wadato oo dhulkii iyo baddii dhinac u cabiratay in ay qolo xukuumadda ka tirsan wasiiraha iyo rag kulley hoos kala socdayba intiiba ay dukumenti kulleyba aan loo baahnayn oo taariikh xumo ah mar kasta oo laaya warqadahaas ayaga meel kasta yaalaan meel kasta dukumentigaas feermada ay xilligaas xukuumadda iyo magacyadii goob kasta oo aad tagto xafiis kastoo hadda la wareego waa yaalaan hebel hebel waxay u tahay wax ayaan darre oo taariikh mugdi ah ayay noqonaysaa annaga marka waxa kala hadlayaa mise xukuumaddan oo markaa jirta waxaa waaye xukuumadda laakiin xukuumad xilligaas jirtay oo dad wakiilo ka dhigatay baa hawshaa gashay xukuumadda tabe xukuumadda xukuumadihii naga horreeya ah waxa waaye waa 2009 saan jeclahay markaas waqtigiisa almuhiim arrinta iyada baarlamaankii door uu ka qaatay in
wixii allaale wixii heshiisa oo aan baarlamaan soo marin sida sharciyadda ay tahay in aanan ansax ahayn u socon. kaas meeshaasuu ku afxiran yahay. waa jiraysaa weli in warkii socdo laakiin weli hadda wax hadda baarlamaan ahaan guud soo gaaray oo qaabaysan male. waxaa si jiraysa oo jirta in hawshii hadalkeeda uu taagan yahay oo looga baahan yahay mustaqbalka dambe in khubaro Soomaaliyeed oo nidaamkaas aad wax ugu fahansan xisaabta adag geli karaysa maadaama hadda wixii hore laga soo baxo xilli kale la soo galay. annaga ahaan ka deegaan ahaan waa meesha kulleyba sida aad tilmaamaysaa qaabkeedaan u nahay. habeenkii dhoweyd markii aad la kulmayseen Soomaalida degan Scandinavia ama Norway oo halka raalaad oo Norway isugu yimid gudoomiyaha baarlamaanka hadaladiisii waxaa ka mid ahaa oo uu yiri wix allaale iyo wixii heshiis ahaa oo ay soo gashay dawladdii naga horeysay dib baa loogu noqonayaa. heshiis ay dawlad kale soo gashay miyaa baarlamaanka maanta uu joojin karaa? maaha micnaheeda sisteemaha la galay oo nidaam hore heshiis inta loo galay uu baarlamaan soo maray baarlamaanka aqbalay kaas maa ka noqoshada leh. laakiin waxaa jirta heshiisyo gaaban oo ragga qaar oo xukuumadihii hore kala duwanaa oo haddee marba midba baarlamaan soo marsiinin baarlamaanna lama soo marinin heshiisyo dhexda yaalaa jira marka oo wasaarada ay galeen. marka noocaas oo kale waxay tahay in dib u eegis lagu sameeyo sharciyadda xaggeeda si baarlamaankii uu dib u eegis intuu ugu sameeya haddii ay yihiin waxaas wax dan dalka u noqon karaayeen hore loo wado, haddii ay yihiin wax dan dalka iyo wax u dhimaaya haddii yihiin in dib loogu celiyo cidda hawsha ayada. shacabka baarlamaanka Soomaaliya waa sharci ilaaliyihii waa qaanuunkii dalka u yaalay dadkii ilaalinayay. marka laga hadlayo in la sameeyo maamul goboleed oo kale yaa samaysan kara maamul goboleed? dadka waxaad moodaa inay is-indhatirayaan. waa maqalnaa inta badan dhawaaqa taagan ama dadka qaar xasaasiyaadka qaar wada hadlaya. waxaana moodaa dhulkaas deegaankaas dadka ilaahay ku manaystay in dadka qaar ay qabaan dhulkaana waa la wada leeyahay kana gaaro aniga yahay in badan in dadka qaar ay saas fikirkooda iska wixii kale inaan hadal lahayn. laakiin jubba haddii la yidhaahdo labada raasba ay noqdaan in doodeeda ay timaada. laakiin waxaan ka hadlaynaa arrinta ayada sharciyadeeda waxaa noo qoran qodobka 49aad farqadii 6aad ee dastuurkeeda 2 gobol iyo wax ka badan ay saddex yihiin in ay ku midoobi karaan. 2 gobol iyo wixii ka badan yaa maamul goboleed sabaysan kara. su-aasha marka aan ku weydiinayo waxay tahay Jubbaland 2 gobol iyo wax ka badan maaha? waa 3 gobol ay noqonaysaa. marka waxaan kala hadlayaa markaan ku leeyahay 2 gobol wax ka badan waa sidii wax u qorayiin. marka Jubbaland way samaysan kartaa maamul goboleed xaqay u leeyihiin shacabkaas deegaanadaas degan inay ayaga aayahooda eegaan iyadoona mataqaanaa shuruucda aan lagu talax tegaynin. sisteemaha qoran baa dadka qaar ka hadalkeeda hayaan. markay hadda aan warka u noqono maxamedow ama bilow aan ku dhahay arrimaha hadda taagan waxay tahay in dadka qaar fikir cusub ay wataan oo leeyihiin federaalkan muran ku jira. federaalkan waxbaa beesuu yahay waa saldhig meesha yaallo. shala marka hawshiisa ay socotay mataqaanaa kumeel gaarka ahaydna saasaa qodobada qaar u qoraayeen. marka dambe hadda wax noo hagaagayeen ergaa meel timid ma ahayn aniga ergada dadka midka ahaa. ergaa meel timid ergadaas odayaala keenay dhaqana sida processka loo maraya ahayd. odayaashii ergadii wixii ka soo baxay kadibna yaa qaba federaalka in wax laga noqdo ama si qaldan u yahay waxaa tirada qolaa qabtaan maya markaan ku leeyahay aniga hadda shakhsi hebel kuma leeyahay laakiin afkaarta aan dhegaysano ama meelaha ka baxdo ama rag aqoonta nooca doonaan ha dhahaan ama ha noqdaan dad dawladdii laftigeeda dhexdiisa ku jirta oo marba dhinac u rogaysa baasha. marka mas-uuliyaddii sare laftigeeda waxaad moodaa in iyaga ay qalluucinayaan qaabkii wax loogu talagalay dadka shacabkana inay dejinayaan. marka hadda taas hoos ugu soo noqo maxaa yeelay meesha iyada ahayd marka ugu horreysaba
daba qabasho badan ay lahayd laanna magaalada Kismaayo dad isugu yimaadeen sida dareenkeeda ay tahay ogtahay maamul hoosaad waatay hadda markii hore isaga dhawaaqeen oo raali laga wada ahaa maxay kaliya u baahneed in systemkaas dawladeedkii uu meesha intuu gaaro oo hanalgareeyo oo dadkii soo dhaweeyo oo ciidan iyo calaf meesha wixii joogo taladooda maartay qaab waxa waa eego loo ciidan soo baaba'ay meesha soo gaaray in dhaqaalihii iyo mataqaana sidii gobolada kale loola dhaqmo arrimahaas ma dhicin tashi kale ma dhicin oo meelaha hadda waxaa aan ku leenahay ka wada hadlayno inuu arrin laga tashado haddana oo consensus la yiraahdo marse waxay annagii laftigeena baarlamaanka ku jirnay gobolada ka soo jeeday waxna weydiiyey Jubbaland waa 3 gobol baa tiri waa jubbada hoose jubbada dhexe iyo Gedo Gedo dad baa qaba oo reer Gedo ah in Gedo la raaciyo Bay iyo Bakool arrinta maxaa ka jira runtii dad baa qaba waa kulleyba بس ولا سوى أفضوبي أفضوبي كجوا أركتاس أنا قاعد كل يبقى أنت نسوا أركين جبلان مركل اللي هذا ضدك رواقهان إقابهان استراتيجية أهم وحدا كل يكدون وحي جبلان لو يقان إن هذا أساس كرايو إن أي سنة هاي إن إسكال لنا وجار كيسو نقفك وحوس كشيء كرا سو هذا الحين نقطة هبل بالقحمة توا مد بيس أنت تدور شمال كلام آديش جذو وجبلان وسدحاس gobol istiraatiijiyada iyo hawsha ay qayb ka tahay odayaashooda mas'uuliyiintooda intooda badan waxay ku sugayeen magaalada hadda Kismaayo ku sugayeen aragtidan waxaa la abuuray markii la arkay in ay hawsha socoto markii la fahmay dareen laga qaaday dagaalka ma aha macna siyaasadeed mid dhinacyo badan ka imaan ra'yi hore dadaal iska qabay in ay lixda tahay haddana waa inaysan waxba socon kareen ba haddana sidaas kale markii hadda la ogaaday in ay saddexdan gobol dadkii deganaa ay bal isu soo dhawaasho iyo wada tashi iyo wada hadal muddo dheer soo socday isla wataan waxaa moodaa in jiha kale cusub marka dambe waxaan sugaynaa jubbada dhexe in la yiraahdo maya jubbada dhexe iyadana waxay raacsan tahay shabeellaha hoose raacsan tahay iyadana kulli waa sugaynaa warar noocaas kale inuu iska imaado waxay noqotay meeshii in siyaabo kale wax loo dhigo in marka jubbada hoose kaliya meesha ku soo harto in raaci dad baa maadaama aad tihiin baarlamaanka dalka Soomaaliya sharci ilaalin aad tihiin jubbooyinkana aad ka soo jeedid maxaad arrintan ugu bandhigi weydeen dawladda wixii tala naga ah waa u tilmaanay wixii qaabkii wax u dhigayaan hadda oo la siyaasadeynayo waxay noqotay in aanan dadka deegaankaas xoogaal ku ah in aanan waxba la weydiin macnaha waxba laga wareysanin dad gaar oo xildhibaana gaar loo sameeyo la yiraahdo oo ayaga ay qorsheystaan inay mataqaanaa marba aragtidaas waxay noqotay xataa in annaga aan dib u weydiino xildhibaanadan gadaal iyo hore u socdo sida gaarka madaxtooyada dhexdeeda uga baxaya inaan ku qabsano weydiino guddoon baarlamaan aan leenahay war see waxaan u yihiin in dukumenti cad oo gacanka lagu hayo guddoomiyihii hore u qoray laakiin aan la dhegaysanin inta badan inaa taladii uu isaga laftigiisa keenay bal xataa in meelaha la aadayo qorshaha loo tagaayo in baarlamaankii mas-uuliyadu leeyahay guddoonkaasuu kusoo dhacaya oo wixii socda marka qaar waxaa loo malaynayaa in bal guddoonka xagga Gandhi waxaan maqalnay in uu xamar yimid oo la kulmay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrinta maxaa ka jira aniga waa adiga afkaaga ka maqlayaa inta hadda sawir ku soo jiray ma garan karo waan mashquulsan waana mas-uul hadday dadka mas-uuliyadooda xagga aadaan cid kasta mas-uuliyadda si uu uga hadlo arrimaha mas-uuliyadda kulley cid kastay saaran tahay cid kasta oo gobollada ka mid ah waana xildhibaan tuugaar ma laha dadka waxaan ku yidhi deegaanada ka soo jeeda marna ma qabaan inay gaar u istaag noqdaan mar hadday leeyihiin war dadkii aan nahay shacabkii deegaanadaasaan dowladdan wada shaqaynteeda golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma isku dayeen in wafdi baarlamaanka ka socdo loo diro Somaliland
كل وأركت إيمان دون مستقبل إذا إيمان تقبل سياسيا لكن مشكلة التاجن أنت بدل ما حيتاجن مسؤولية أنت دولة ده أيام قاب بدل السعودان عندنا كذا أنت بدل الهيان الفهم كي لقيها مربع إن وحلا مغلا مرة دي لقى مغلا ميديا أنت بدل قاب كل وحلو هذيك السنة لكن واحد في الشارع وحق حكومة السياسة ده كي أدن ما ها برلمان أنا قلنا وحي ما هذا وحنا بعنا هنا دول كذا مركب waxaan jirin wax korkeeda oo madaxtooyada iyo wasaaraha xafiiskiisa ka soo oo istiraatiijiyada cad oo leeyahay waxaan wax ka damacsanay oo aan ka ahayn si mugdi ah in wax loo nuubow su-aasha shakhsiyaada rabada in weydiiyo markii adiga hadda Norway imaanaysay baasboor maxay ahayd weydiin aniga horta sida baasboor Soomaaliya leh مرة قوريسي ولا من يوروب حكذا عن السؤال بران أنا لبضت من الإحدية أنا من الجزر شركة IBU حدنا حكوش عنا وباسبور كي ذلك على حكوش عنا وحدا أنا لفتي أنت تجونا كل يبقى لقيت فائدة سنة مستقبل إن والله شان يحرير كان غروسه وحن رجينا هنا واحد بدن يحكي بدل مدونا حيالي حريرك نظامك عدة له اختار حكومة ميلا بدن أو بوجه تستو شقدي أيجي قوانا هاي روتي كنوري ما كان هذا الشيء بس برا صوماليا إني لقوا ما كان نروي روتي وقاب كان كله يعني الماس فيزوين كذا كلا جوجا ميلا كلا جوجا أما والد أما ومتقنا نعيب بدن له وعلة بدن نعيبها كيستان هي أرنت كلها مهمة هيد وأرمها أقول بدن dadka Yurubta gaar ahaan Norway ku haysta familka carruurta laga qaaday oo ayadana dareenkeeda kulli qof kasta oo Soomaali ah dhibaysay runtii intaan joognay anaga kama gaabsanin arrintaas wasaaradda wasiirka markaan aragnay arrinta wasiirka horumarinta waxyaalaha aan wax ku weydiino kala hadal ka mid tahay gurubooyinkooda gaarka ah xisaabta sida oo kale marka waxyaalo badan oo anaga laftigeena inaan saxano loo baahan yahay meesha iyada ka marno marka waxaan rajaynaynaa siyaabaha wax ayaan adduunyada waxbay mataqaanaa xiriirkooda nidaamkooda marka heshiisyada noocaas oo kale ay systemka bedelaadooda iyo wixii xeerar u ahaa qaabka immigrationka kulli waxaan rajaynaynaa in wasaaradda howlahaas iskale iyo dhinacan kulli Norwegianka hadda wax badan diyaar u ah وأدريمي كرتير أنت على أو ما أنت باسبور في دلك وذا كسر وحير ردمان وحين غندونا بحتكنيشن أنت بتكويتي أنت حلبان يا كويتي باسبور كسمالي حنجينا يعني سدح قف كلمة لا صح يعني باسبور جانب maxaad u soo jeedinaysaa guud ahaan dadka Soomaalida ah iyo gaar ahaan dadka reer Jubbaland runtii leeyahay يعني سأد وين عنده مركب ربع العقار حاجة ما تعلنا هي وما تعلنا هي صومال السد runtii laacib badan muddada ay ku soo birtay howlahan warbaahinta ay soo gashay in ay horumar badan iyo waxyaalo badan oo ummad badan ka qarsooneed ay bannaanka soo dhigaysay waa kulleyba sida wax looga baahan yahay xaqiiqada xaggeeda aadan u mahad celinaynaa Soomaali Sad shaqaalaha meel kasta ay joogaan gaar ahaan madaxa mas'uulka Norway adiga oo bilaa shacabweynaha Soomaaliyeed aan daawanaya meel kasta ay joogaan lana kulleyba muhiimadeeda leh wax kastana in maanta ay bilow yihiin laakiin wax badan mustaqbalka in dalka aan rajaynaynin wax badan iska bedeli doonaan haddii alla yidhaahdo kuwa gudaha jooga oo ku dhibaataysan dalka gudihiisa samarka badan iyo adkeysiga badan jooga
haday noqon lahayd kuwa dibadaha jooga oo annaga laftigeena hadda community-ga meelaha kule Yurubta ku aragnay iyagana dhibaatadooda gaarka ah ku hayso laakiin dad ehla oo aad loogu mahadceliyay la joogaan runtii dowladaha intaba in looga baahan yahay iskaashi xiriir dalkaas intii wax u ahayd aqoon-yahanada bannaanka daadsan ee dalalka bannaankiisa jooga ee dhinac kasta leh iyagana waxaa leenahay inay loo baahan yahay fikirkooda maskaxdooda dalkaas inta badan waxa bi'inaya waxa u badan baa aqoonta oo aad u liidata in aad looga baahan yahay dhinaca dhismaha iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada intaba majaal rag wax u bartay waxaad dareemi kartaan system dhan oo dhisan caafimaadka dhaqaatiir hab dowla u shaqaysa oo dowladdaas hoos tagtaa inay aad u yartahay macallimiin sidoo kale inay aad u yaryihiin injineeradii oo wasaaraddii howlaha guud inay aad kuleyba iyagana bannaanka inta badan ay kaga maqayin waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in dadkii dib wax ka bartay gadaal wax ka bartay kuwa hore wax ka nool galin dalka u noqda midka sida gaarka ah isugu soo howlaan sidii qaybtooda uga qaadan lahay meel kaste oo ay dalka bannaankiisa ka joogaan midda kale jaaliyadda Jubbaland ku nool dibadaha ku nool oo dhan maleeyahay qoys laakiin dhammaan deegaanadaas oo dhan oo aan dareemayno inay dad kala duwan ay degan yihiin magaalooyinka Kismaayo iyo inta ku hareeraysan in loo baahan yahay in maanta xilliga taagan in aad looga faa'iidaysto maadaama ay bilow wanaagsan ay bilaabeen oo aan hore loo arkin tiro 500 kor u dhaaftay 600 oo deegaanada ka soo kala jeeda oo magaalo isugu yimaado oo wax isbarsato runtii marka laga fiiriyo waa wax positive ah way jirayaan dad dhinaca kale wax u fasira laakiin intaas in ay meel isugu timaado wax isweydiisaa waxay tahay wax aad u guul ah in hawshaas wixii garab iyo maskax iyo dhaqaale ay u noqon karaan in ay kusoo beeriyaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa inta sida gaarka ay ganacsatada ay isugu hawshay ee aan dareemayno aan sahal ahayn maxaa yeelay mar diyaaradaha socda ee dadka dhinaca u kala qaada waxay u badan yihiin dad ganacsata ah oo aanan wax interesti gaara marka ayada ku lahayn laakiin dadka deegaanadaas waxaad dareemaysaan dalka duuduga in ay yahay gobolada u qanisan inay yihiin xildhibaan Cismaan Aadan Dhuubow waan ku soo booqannay hoteelka uu ka degan yahay magaalada Oslo kana mid ahaa 15 xildhibaan ee ka yimid dalka Soomaaliya oo soo gaaray dalka Norway barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Axmed tan iyo intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh